markaan u jeesto marka ilmaha guryaheena jooga ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteeda ha ogaadaano waxa aynu doonayno yaa Ilaahay nasiinaya waxa weeye runtii kii ka been sheegana waxaan leeyahay been low baa tahay baan leeyahay waxaan ku leeyahay fikrad cilmi ku dhisan ma aha fikrad khiyaal loola jeedo fikrad beenbeenays loola jeedo fikrad ummadda lagu seexiyo fikrad cadawgooda lagu jabsho ma aha waxa weeye mid xaqiiqda ama ha macaanato ama kharaarate gacanta loo saarayo marka innaga ina jirtaa marka inaynu dulli ku noolaanayno iyo inaynu nolol xaqa ku noolaanayno innaga ina jirtaa inaynu dhasheenna iyo dhalinteenna dhabaha xaqa ku tababarayno si ay bari waddankoodana uga ilaaliyaan cadow naftoodana dulli isticmaalay uga ilaaliyaan sidaa kaliya ku iman karay waxa masal fiican u noqon kara ee maragma doonta ah kuwa kana u noqon kara waxay maanta inaga hooseeyaan ma jiraan waxaan filayaa wixii aan dheeraan karnaa waxa weeye waayo aragnimo inaanu hameeyna badan inagu noolayn ama jirnay iyaguna ay curdan yihiin oo soo socdaaneen inta kale inuu dheeraan karnaa laakiin maanta intaan garanayna waa garanaya sababtu waxa weeye waa lagu tababaray waa lagu habeeyay waa ay garanayaan tan oo dulli ah iyo tan oo gobonnimo ah yaa isu agyaal waana kala garan karaanin dulliga iyo wanaagga sidaa darteed waxaan waanahan idinku soo jeedinayaa jaalayaal ama ummadda Soomaaliyeed aan ugu soo jeedinayaa guntiga aynu ku adkaysanno dhexda walow abaar iyo waxaas jiraanin haddana micna kuma fadhido waxaa la yiraahdaa nacas hadduu kufo ma kaco nin ragu hadduu kufo waa kaca shacbiga Soomaaliyeed abaar hadday haysto waa inay kacdaa abaarta waa inay ka kacdaa dhibaatada waa inay ka kacdaa waa inay noqotaa ummad isku filan ummad isqaadata ummad iscajabta ummad isdaafacda waa inay noqotaa waana inaan kacnaa waxa ina kicin karaa waxa weeye kali ahaan innagoo midayna fikradeenna innagoo aqoonsanna waa lagama maarmaane cadaaladda innagoo tabcanna innagoo ka ilaalina tuugo iyo khiyaano innagoo ka ilaalina intaas baa gundhigu ah dalkooda waka waxaan idin leeyahay intiina ka soo qayb gashay xafladan iid wanaagsan waxaan rajaynayaa iideeda kaleeto kuwii khayr ku iiday waxaan tilmaamanaynana inta u dagaalgalay ku guulaystay inaan noqonno waxaan kaleeto u celinayaa madaxda ciidamada asluubta madaxda xarumada macallimiinta mu'allifiinta qolada fan muusijinka dhalinta intaba iyagana mar labaad iid wanaagsan iyo hambalyo hawsha fiican oo aad natusteen adinkana waxaan idin rajaynaynaa waxa aad doonaysaan Allah idin siiyo waa mahadsantihiin